على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. maantay oo taariikhdu tahay 9 dilxija 1440 oo waafaqsan 10 August 2019 waxaanu isugu yeeray saxaafadda. mowduucan ka hadlaynana wuxuu yahay oo aanu soo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed waa ummad islaam ah, waxay leedahay dhaqannadaas waxaa jira dhaqamo yar xoogaa sharciga islaamka qaarkood aan boqolkiiba boqol su aha u waafaqsanayn. haddaan tusaale u soo qaadno dhaqanka magta, ummadda Soomaaliyeed waa qabaa'il walba ama qabiilo walba oo wadaagta magta waxay u dhaqantaa qaab xeer hoosaad ah oo u degsan. sida badan ilaa ummadda way isgaranaysaa way istaqaano dhaqan ahaan waa isgaranaysaa. waxaa dhacda in qofka dhibanaha ah magta laga soo qaado, qaybna la siiyo dhibanihii, qaybna qabiiladu qaybsato. qofkaas ama agoon ha noqdo ama qof muqdar ah oo aan agoon ahayn oo caadi ha noqdo, labadaa dhaqanba waa jiraan. waxaan marka soo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed baaq aanu ugu baaqayno inay arrintaa ka tanaasulaan oo ka baxaan ciddii samayn jidhay. ficlan waa ognahay waa la sameeyaa, waana dhaqan jira. in dhaqankaa laga takhalluso oo laga guuro oo loo guuro cidda dhibanaha ah in la siiyo magteeda, oo waxba wixii kharasha dabcan iyadu waa gaar, waa laga jarayaa. wixii kaleeto in qofka dhibanaha afarta laga saaro oo aan waxba lala qaybsan. arrintaasu waxay dhashay in dhallinyarada sufahada ah iyo dadka maangaabka ah ee hubku gacanta u galay inay u fududayso inay wax iska laayaan, iyagoo isku hadlaynaya in magtooda la taanataanaynayo oo qabiiladu qaybsanayso, weliba lagu faano oo la yidhahdo insurance baan ku jiraa, waana lagu ururinaya, waa lagu taanataanaynaya. erayadaas iyo wax la midka ay yidhaahdaan oo ku faanaan, kadibna dilkii iyo dhibaatadii ay fududaato. waxaan marka ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed halkaan insha Allah u arki doonta, inta nala joogta iyo inta na arki doontaba, inay dhaqankaa ka guuraan oo u guuraan dhaqanka saldhigiisu uu yahay walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab. halkaa inay u guuraan si ay u fududaato in muxuu ahayto laga nabad galo dadka sharka iyo shiddada iyo dhibta ka shaqaynaya. dhallinyarada caynkaasa si caqligu ugu soo noqdo, ummaddu u kala badbaado. dhaqankaas waa in la hirgeliyo. faahfaahinta iyo arrintan waxa dhalay iyo sababtay ku timi hadda saxaafadan in la qabto insha Allah nabadoonnada ayaan uga baxaya oo faahfaahinaya. ku soo dhawow nabadoon Ciise Caduur. oo aynu nahay haddaan Soomaaliya nahay, khaas ahaan gobolka hadda aanu joogno waa Puntland, in shareecadda islaamka looga guuro qaababkii yacni magaha lagu dhaqmi jiray, fududeeyana qatliga iyo dilka loogu talagalay qof aan wax dhimin in la iska dilo oo la yidhaahdo magtiisii tolbaa qaybsanaya. waxaan uga guuray shareecadda islaamka in lagu qaado laguna dhaqo ummadda. wixii haatan kaleeto oo saayidana ah maamulka iyo beelaha iyo annagoo ah beesha Ciise Maxamuud oo Yoonis Idris la yiraahdo, khaas ahaan arrintaa waxaanu jeclaysanay in nala qaato dadka deegaanka ah oo ama reer Puntland ama Soomaaliyeed, in shareecadda islaamka aynu ku dhaqanno waxna lagu oofiyo. wixii aan dhaafo odayaal baa iga damayn doona ehelka ah. salaan ka bacdi sheekha iyo nabadoonka iga horeeyay isku beel baanu ka soo jeednaa, waxaanu ka soo jeednaa beesha Yoonis Idris
shir beesha Yunistis ay ku gashay magaalada Qarxis go'aamadii ka soo baxay baan waxaan u soo bandhigaynaa dadweynaha halkan warqadahan aan ku hayo 2 warqadood weeye midna waxaa saxiixay 30 nin oo waxay yihiin nabadoonnada iyo siyaasiyiinta iyo culimada midna waxaa saxiixay 33 nin oo waxay yihiin xeer beegtidii loo diray arrimaha tolka inay ku soo shaqeeyaan saxiixadoodii way saxiixeen qodobo ay ka soo saareenna haddaan idin akhriyayaa qodobadaas qodobka koowaad wuxuu yahay beeshu sidii sheekhu u sheegay beelaha Soomaaliyeed bay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ee dhaqamada ay leeyihiin way iska dareemeynaa xagga magaca ku saabsan inagoo dad islaam ah oo shariicada islaamka haysanay baa haddana wuxuu la xaal gees mari jiray sida magta aan sharciga ayaan ugu fadhiin beeshu qodobka koowaad waxay isla qaadatay in magaha lagu fariisiyo shariicada islaamka qofkii qof camdi u dila in la dilo koow qofkii qof khada u dila in dayadiisa la bixiyo kii la cafiyo oo xariga laga sii daayo oo laga cafiyo dilkii in magta la wada bixiyo kii beesha kamida oo dhintay xaqiisa inuu isagu leeyahay oo aan cid la wadaagta iyo cid la qaybsanaya jirin magti qaabkaas baa beeshu uga heshiisay deegaanka in la wada ilaashado oo deegaanka ummadda ka dhaxayo in la wada ilaashado waxyaalaha horumarinta dalka ah in laga wada shaqeeyo khaas ahaan wadada ayl iyo dangoray u dhaxaysa oo la dhisayo wadada beeshu go'aan waxay ka qaadatay hareeraha in la iska taago sida ayaamihii hore xoogaa buuqa iyo muranka iyo uga dhacinayaan ka dhicin wadada waa ogtihiin sheekh aadan gaadaale baa awal qaybteed ka shaqeeyay xoogaa buuqiyo iyo waxyaalaha ka dambeeyana way jiraan go'aanka dawladdu ka qaadatay ay ka qaadatay beeshu wuxuu yahay dawladda iyo beesha iyo shirkadda shaqeynaysa cid u dhaxaysa inay jirin beeshuna ay nabadgelyadeeda iyo wanaageeda ka shaqeyso waxaana u wakiilatay sheekh aadan maxamed ciise inuu oday uga yahay cid kale oo ku soo faragelin ka dhanaa aan jirin hareeraha la iska taago laga wada shaqeeyo go'aankaas la qaatay nabadgelyadana laga wada shaqeeyo beesha dhamaanteed wadada hareeraha iska taago cid hadda aan beesha dhaxda wax ka qaban karinna ayaan faraha soo gashan beeshu diyaar haday culimo tahay haday nabadoon tahay wadada waa la isu taagay in laga wada shaqeeyo la rabaa dawladana saasaan ogeysiinayna dawladda iyo shirkadaha ka shaqeynaya iyo beeshana cid dhaxaysa jirin xagga magtana waxaan ummadda ugu baaqaynaa islaamka oo deegaamada degan in arinta la wada qaato qofkii camdi wax u dila in la dilo annaga gaar waxaa noo ah kii la cafiyo oo dilka laga cafiyo inay beeshu wada bixiso kii anaga dhaxdeena la ka dilo ama agoon ha ahaado ama cid kale ha ahaadee xaqa laga soo qaado in ciddii dhaxashay ay leedahay oo aan cid kale la qaybsanaysaa jirin arrimahaas iyo wixii kale oo haatan dheer bay beeshu ku heshiisay in sidaa looga wada shaqeeyo ummaddana waa ugu baaqaynaa ummadda waxaan ugu baaqaynaa in magaha lagu fariisiyo shariicada islaamka oo aan cid gees kama dhaajirin qofkii qof dilo camdi u dilo in tiirka lagu soo xiro qofkii isaga cid laga dilo in dayadiisa la siiyo ummadana waa ugu baaqaynaa ummaddu inay arintaa qaadato oo nala qaadato hadday haataan ay wax naga dhiman yihiin lagu daro hadda aanoo wax khaladnana hadda bini aadan baa u nahay haddii alla kuu roon yahay nala ka sixi karo laakiin muhiimadda waxaanu ku soo koobnay in sharciga islaamka la waafajiyo magta arrintaas waxaanu aaminsannahay in wax badan oo culays ah in saaraan jiray ayna kaga degayaanin intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii kale sheekh ka taagan tahay oo qaatilka ah oo caamidka oo camdiga wuxuu dilay ninkaas dhibaato ummadda ku haya Soomaaliyeed meesha bu'da jiran iyo xarunta koobta jiran halkaa weeye ninkaas haddii laga cafiyo dilka oo dadka dhiigga ku leh dilka ay ka cafiyaan nabadoonnada waxaan ka codsanaynaa ninka inaan la difaacin ee sharciga islaamka loo daayo ilaa waa la isku duubaa oo qabiilo walba hareeraha iska taagtaa oo waa la dhoofiyaa oo meelahaas laga tuuraa oo ummadda waxa isku laayay halkaa weeye ninka haddii dilka laga cafiyo diyadiisa waa 100 diyadaas isaga lagu leeyahay magta isaga lagu leeyahay warka cad saa weeye waana qarharantahay shariicada islaamku waxay ka dhigtay 40 halaad oo dhalaya
iyo 34 jir oo qaalmo ah iyo 35 jir oo qaalmo ah wixii tacsiira iyo wixii kale waa gaarkeeda ninka hantida isaga lagu leeyahay sharcan waana meesha jiran ninkan khadda wuxuu dilay oo khadda uu ka dhacay oo qalbi jabay isaga bilkulliyan ma qabo qabiilada qabto iyo dadkaas heshiiska ku ay magta wara bixiyaan ninkaas marka difaacnayaan laga gelin ummadda Soomaaliyeedna meel hay iska dhigto tacsiirna ha ahaato ummadda ku kala badbaado sida ha lagu xiro arintaas hadii diyadaas ay ka bixinayso qabiiladu haday ka bixinayso dawladda iyo maamulada waxaan ugu baaqaynaa ninkaas in xabsiga la dhigo inta diyadiisa la helayo si ummaddu kala badbaado haddii la oranayo bacmadowdiis ha qaato ummadda ha dhex maro oo wixii ha urursado oo halka laga dhigayana waa gaarkeeda waa furan tahay oo anigu bir ku goyn mayno oo ummadda baa iska leh marka waxaan ugu baaqaynaa dawladuna inay go'aan ka yeelato qofka noocaasa waa ogtiin ummadda waa wada musallax hubka la warasitaa dawlad xoog loo dadka caburisana lama hayo arintaas qaraaraha laga yeesho qabaa'ilkuna ha ka shiro ummadda Soomaaliyeedna taladaas ha nala qaarato ha wada qaateen allah idin barakeeyo aad baa u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh wixii hadda aan ku darnaa waa iska baraarujin iyo ku sii karid wey arintaas culays weyn magta culays weyn bay dadka ku haysay ummadda oo dhan oo Soomaaliyeed oo dhaqankaasi ku dhex jiro diintoodana way ku haysaa waxay ugu haysaa ilmihii agoonka ahaa magtiisii ma arko dadkii maatada ahaa magtoodii ma arkaan kii xoog lahaa magtiisii muwaariska ahaayo magta lahaa ma arko nin kibray oo kibir wax u dilay waxa weeye koobtaasaa la geeyaa waxa la yiraahdaa naga qaata 500 oo halaad 300 oo halaad 400 oo halaad arintaasi diinteenna waxbay u dhimaysaa ogaadana qofku si kasta oo loo difaaco oo shishada loo marsado muddu leeyahay go'an muddadaasna dhaafi maayo haddii la yiraahdo naga hooyana haddaan u qorayn waqtigiisii uu uga hareen waa la masaabaxaya waayo xugun ilaahay weeye mudda loo gooyay muddadiina ka hormari maayo arinta ha lagu kalsoonaado ilaahay go'aankiisa ha lagu kalsoonaado iyo diinta uu soo dejiyay adduunyadan markii la abuuray ilaahay buug buu ka daba keenay kitaab buu ka daba keenay wax kasta oo aad aragteen adduunka wixii la sameeyo kimbanida yararka bini aadanka wixii ay sameeyaan waxay u sameeyaan buug ay raacaan ilaaha qaadirka ahi meeshan kitaab uu soo dejiyay adduunkan kitaabka ha la raaco kitaabka waa haysanay ala duul muslim baynu nahay laakiin xeerar baa ina ku dhex jiray waxba ina ka khalkhaldami jiray marka la yiraahdo shariicada islaamka halka kaliya ma aha laakiin waa meesha ugu xanuun badan meeshaas waxyaabo badan baa jira waxa jira nikaaxi gabdhaha soo galaya waxa soo galaya mucaamalaad kale waxa soo galaya jinaayaad baa soo galaya waxyaabo badan baa soo galaya waxaan leenahay dhaqankeena ala duul sharciga islaamka aynu ku salayno haddii aynu ku salayno ogaada ilaahay baa inoo fududeynaya wax walba daa intaasan kaga baxaya waxyaabaha kale oo dhaqanka iyo maxaan ku yiraahdaa bay'ada iyo deegaanka ah dadkii shiray oo beeshii shidhay go'aan bay ka soo saareen wax badan oo hadda aan laga hadlin oo ku hoos jira baa jira dad badan baana la wadaaga kaligood meesha waa la degan yahay dad badan baa wadanka wada degan waxaan leenahay wixii halka ka soo baxay oo xeerarka qodobadii la akhriyay iyo kuwa kale oo dadka u dhow ay akhrisan doonaan oo waraqaha ku qoran ha lagu dhaqmo oo wadanka nabadgelyadiisa iyo wadanka nooleyntiisa iyo deegaankiisa iyo maxaan ku yiraahdaa ka hadlaya taasna intaasan ka oranaya arinta wadada oo hadda nabadoon ciise ka hadlayay wadada iyadoo aan ninna ogeyn oo hadal hayn nin baa meesha yimid oo xaaray oo wada ka bilaabay ikhtirac buu isaga la yimid ikhtiraciisa khayr allah siiyo waxay gaadhay in dad badan ku soo yaacaan waxaan leenahay qofka bini aadanka ahi wixii uu ku guulaysto oo isagu fikradeeda la yimaado waa lagu tixgeliyaa haddii qofkii wax keenaba dhabarka laga jabiyo maanta dambe cidina wax isku daymayso cidina wax keeni mayso ninkaas waxaan leenahay hal la garab galo cidii kale oo waxaysaa waa ma aha in la leeyahay cid kale ma iman karo meeshii cidii waxaysaa waa u imanaysaa isagay soo abaaraysaa isaga shaqada hayay isagay la maxaan ku yiraahdaayay wax la qorsheysay isagay shaqada isugu imaanayaan shaqadii waa furan tahay laakiin meesha nin baa ka shaqeeyay ikhtiraacada lahaa halkaas loo soo maraya wadada loo soo maray albaabka laga soo galay ninka weey iyadana sidaas ayaa go'aankii deegaanka dadkii deganaa ay soo gaareen weeye
waxaan leenahay waa soo dhawaynaynaa cid kasta oo wax horumarina wadda laakiin waddada saxa ha soo mareen baan leenahay waxaan kaloo leenahay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa arrintaas waa in ay ka kaaftoomaaniin xeerarka ah dhul badan bay ka jidhaa waa ognahay dad dhintay oo dadku waaba isdhaandhaameen dad dhintay oo sabeen laga xiri jiray baa jira meelaha qaarkood marka waxaan leenahay ilaahay aanu noqonno diinteenna waa haysanaayo calaaduul diinta waa haysanaa laakiin dee waxba ayna ka dhexgalgaa waxyaabaha ku dhex jira aan iska safayno sidaasaan ummadda islaamkaana ugu baaqaynaa dada kan xeerka gaarana waxaan leenahay allaha ku guuleeyo ilaahidankiisa ummadda kale oo la degan oo reer nugaaleedna dadka hadda waxaan maqlaynay deegaanka karkaar qolyo ka mida inay iyaguna ay arrintaasoo kale u fadhiyaaniin allaha ku guuleeyo waan leenahay ha fahamsiiyo diinta maxaan ku idhaahdaa dadka kale oo maxaan ku idhaahdaa reer nugaaleedna iyagay ka bilaabanaysaa waxaan leenahay walaalayaalow aan ku dayda haddii wax dhaliilaysaan ku jiraanna waxa weeye dee waa sixi ka dhaan haddii wax uun yar jiraan laakiin waa in lagu daydo oo shareecada islaamka calaa duul aynu wada qaadanno sidaasaan isku ognahay waxaa muddooyinkii u dambaysay inay beelaha reer puntland gudub shalay waxaa jiray go'aamo laga soo saaray meelo ka mid ah gobolka ka oo la lahaa dowladda iyo dhanka siyaasadda marka loo fiiriyana siyaabo kale ayaa fasir looga bixinaya markay su-aasheedu waxay tahay maxaa xilligan ku soo beegbeegay dadku inay arrintaas halmar miidiyahan shareecada la qaato mooyse dadku waaga hore islaam ahayn bismi illaahi raxmaan raxiim dadku islaam waa ahaa waana yahay dad takfiiriyahoo dadka hadda manhaju samaynaya ma nihin masaladan waa laysyaqaano ummadda way isgaranaysaa soomaaliyeed soomaali maryooley waxba kuma kala qarsoona masaladaanu qaab waxaa loogu dhaqmi jiray xeerar ah bulshada qofka ka mida oo wax dila qaab baa lagaga dhaqmi jiray qofka la dilana hantida laga soo qaado qaab baa lagaga dhaqmi jiray qaababkaas marka waxbaa ka qaldana oo sharciga khilaafsanaa oo maslaxad iyo dan la biday say iyaga la ahay dadka xilliyo horena la dejiyey qaabkaas marka xilligan lama jaan qaadi karo aynu joogno sababtoo ah waxaa batay bidcadu bidcay dhashaa munkarkuna munkar buu dhalaa masalada qaldanna masale qaldan oo kale ay dhashaa ma ujeedaan marka arrintaas in laga guuro oo bilkulliyan sidii ilaahay u dhigay subxaanahu wa tacaala loo dhigo waxna aan laga bedelin waxna lagu darin halkaasna la qotomiyo baahida ummadda haysata iyo wakhtiga aynu joogno baa isku soo beegmay saasaa keentay ummaddu inay af labadii daan yeedho oo saxaafadda u qayliso oo dawladda iyo maamulada la hadasho oo halka arrinta si loo kala badbaado oo loo noolaado bal nolosha wax uga sii haraan wasala allahuma calaa sayidina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasallam